murashaxa madaxweynaha galmudug cabdi cabdullaahi axmed cabdi dheere oo maanta gelinkii dambe soo gaaray deegaanada galmudug ayaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay gegida diyaaradaha Ugaasnuur Airport ee magaalada Dhuusamareeb. soo dhaweynta murashaxa ayaa waxaa ka qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ugu horeeyaan maamulka degmada, xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale. waxaana xaflad kooban oo lagu qabtay gudaha garoonka ugu horeyntii ka hadlay gudoomiyaha degmada ahna duqa caasimadda Macallin Nuur Cilmi Cabdulle, isagoo sheegay inay si weyn u soo dhaweynayaan murashaxa madaxweynaha galmudug. maadaama higsi iyo horumar insha Allah waa ku dhigaayo annaguna aan rajaynayno waxay ku soo dhaweynayaan si boqolkiiba boqol ah. meeshu waa qarax alla dulqaato ayaan leenahay ma la sii dheerayn doono khudbadda, laakiin waxaa ballanqaad labaad noo ah insha Allah xaflad sanadka weyn la dhigi doono loogana dhalgi doono ballanqaadyada iyo khudbadaha madaxweynaha insha Allah. soo dhaweyn doona musharax bulshada waxaan leenahay wax yar dulqaata qaraxda insha Allah. dhammaan mas'uuliyiintii goobta ka hadlay ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay murashaxa madaxweynaha. ay tahay aragti gaar ahaaneed oo dhibaatooyinka dalka ku soo maray iyo muddadii iska dabawareegga lagu jiray xog ku filan inuu hayo. marka cabdi gaara waxaan ku leeyahay meeshaan waa meeshaan ku dhalatay haddana aad rabto inaad madax ka noqoto gacmo furan baan kugu soo dhawaynaynaa. ilaahayna khayr hadduu kugu jiro ha kuu sahlo. intaan waa intii wax kula rabtay, intii wax kula jeclayd weeye. halkiisan baan kugu soo dhawaynaynaa. la tartamaya maalin walba daraadan soo dhawaynaytii ka horreeya hadda waa soo socdaan, laakiin ninkii calafku u balaa qaadaya ilaahayse waxaan ka baryaynaa in ilaahay noogu fududeeyo midkii khayr noo wada. sababtoo ah lama yidhaahdo waxaan helo ama aan qaato, laakiin ninkii khayrka ku jiro ilaahay ha noo fududeeyo. galmudug waa baaba'day, waa rakaaday. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay murashaxa madaxweynaha galmudug cabdi dheere. waxa uu ka mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyay, isagoo sidoo kalena ballan qaaday inuu waqti la qaadan doono bulshada reer galmudug. qorax uu mataqaana adag tahay, muddo dheerna sugayay. waxaan leeyahay ilaahayna waana sharafteen, waa inaga mahad celinaynaa marka hore. marka labaad waxaan ku faraxsanahay inaan maanta soo gaaray magaaladii Dhuusamareeb, xaruntii galmudug, magaaladii taariikhiga ahayd, magaalo mudan lagu ammaano amniga iyo sharafta iyo karaamada ay ku difaacday dadkooda iyo diintooda, magaalo mudan in lagu ammaano bulshadii ka soo baxday ee soo barbaarisay oo runtii wax ku ool weyn ka ah bulshooyinka Soomaaliya, magaalo xudun u ah maamul goboleedka galmudug, isla markaasna lafdhabar u ah dalweynaha Soomaaliya. galmudug waxay nasiib u yeelatay in xarun ka dhigato magaalo dadka Soomaaliyeed u dhan yihiin. waxaan leeyahay galmudug loo dhan yahay ayaa xarun waxaa noqotay Dhuusamareeb, magaalo loo dhan yahay. taasna waxay keenaysaa Soomaali badan inay ku soo dhiiradaan oo mataqaanaa maalgashi ku sameeyaan oo shaqo abuur ku sameeyaan. waxaan rabaa intaas markaa ugu gudbo, maadaama waqti kulul iyo qorax la taagan yahay, inaan isku wareysano gogashaas reer Dhuusamareeb, inaan isku wareysano, inaan iska wareysano aayaha mustaqbalka galmudug iyo meesha rabno inaan u jihayno galmudug. xasan cumar xasan, galmudug TV, Dhuusamareeb.